waxay culimadu sheegeen markay mawduucan ka hadlayaan nin abwaana oo aad u aftahana oo laakiin ciyaala suuqa oo fogaaday ilaahay ka fogaaday magaciisa waa sheegeen laakiin halkan ku sheegi mayno ayaa wuxuu gabaygii u isticmaalay dumarka inuu ku xodxoto gabadh kastoo uu ka helo wuxuu yidhaahdaa naftaada isii ama waan kuu gabiyayaa gabay odayguna kugu furo ama aan lagugu guursan noloshana aad kaga dhacdo oo waxa weeye lagu safro oo lagu madadaasho ayaan kuu gabiyayaa gabayguna saamayn weyn buu lahaa wuxuuna waa caaro waa gabadh dabadeedna qaar badan baa u daciifa oo is yidhaahda ninka baladiisa iyo sharkiisa isdhaafiya gabadh buu ku soo hagaagay maalintii dambe gabadhii buu ku yidhi waxa weeye haddaadan naftaada isii waan kuu gabiyayaa aad bay uga walwashay gabadh macquula bay ahayd caqli badan xal bay weyday gabayna ma doonayso nafteeda inay siisana dooni mayso waxa weeye waxay fakartaba ina kaydahunna cadiim dhagartoodu waa weyn tahay waxa ay tidhi waa yahay guriga noocaasa xilliga noocaasa waa xilli habeena saacadda noocaasaad iigu imanaysaa gabadh xishood badan baan ahay waxaana naftaydu aqbali mayso kelmad kuu jiibin maayo ilana hadli maysid faynuuskana waan daminayaa faynuuskana igu shidi maysid waxaaga markaad dhammaysato albaabka ka bood dibna iyanaan isu arkin anigu wuxuu ihi hawshaasun baan u socdaa diyaar baan u ahay islaantiisii bay u tagtay waxay ku tidhi odaygaagii baan isaga taag lahay caawana waa la ballamay waxaan doonayaa booska inaad ii buuxiso waayahay bay tidhi islaantii baa qolkii madoobeed u gashay waa xaaskiisii qolkii madoobaabay u gashay ila ballan baa lala galayo isagoo ordayuu soo galay hore hawshii ka bilaabay markuu si dhammaystay is yidhi bax ayay tihi waryaah miyaadanay garanay intuu naxay buu yidhi acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay oosho waxaad ku macaanayd xaaraantaad ku macaanayd xalaashana waad ku qadhaadhayd buul waa isla islaantiisu iyo habeen horaa isugu dambaysay laakiin maanta markay dhuumaalaysi noqotay niyadda uu geliyey inay cid kale tahay ayaa isla meeshiiba waxay la noqotay meel kale la noqotay waxaa halkan laga qaatay shaydaanku waxaan macaanayn ama wax aan sida la filaya ahayn inuu wax kale shaydaanku uga dhigayo qofka uga dhigayo aniga waxay soo martay barigii aan intaanan jaamacadda tagin ayaa waxaan xifdiyay alfiyatu ibnu maalik ayaan xifdiyey dabeedna xifdi iska galabgalaba buu ah waxaa magaalada yimi 79kii bilowgiisii bay ahayd shariif tawiil shiikha la yidhaahdo waa la wada yaqaanaa ilaahay xafido waxa weeye oo dee ina maaliga dhowr iyo 20 sano macallin ku ahaa dhowr iyo 20 sanana ku subcinaya sida quraanka loo subciyo sida faatixada wahay wuxuu yimi magaalada wuxuu yiri ina maalig waxa xifdisan man doonay anigoo markaa dhameeyay oo galab oo naqtiinkii baan dhameyn ayaa la ishay masjidka maghrib iyo cisha dhexdii anoo fadhiya ayuu yimi wuxuu yiri salaamu calaykum wa calaykum assalaam ina sheekh cali xasan sheekh cali maadiga ahaa ninka ina maaliga xifdisan maadiga saas waxay weydiinay manaaqa waxaan ku yiri waa dhameeyay laakiin wali aad ma hayo wuxuu yiri fariist wuxuu bilaab قال محمد هو ابن مالك يا أحمد رب الله خير مالك إلهي أمرك إلهي مهدي عادتي waxay ahayd mar walba intaan siraahdo muraajicay inaan intaan bilaabo markaan 3 boqol gaaro baabul istithnaa iyo meelahaas inaan waxa weeye ka mashquulo kadibna aan ilaawo tawadna illa baabul istithnaa sida faatixadan waa 3 boqol laakiin wixii ka dambeeya waa Allahu a'lam taabay u baahanta waanu bilawna waxa ku ri diyaar ma ihi tawakkal ala Allah waanu bilaabayna horta 3 boqol si fiican baan isaga caadi markaanu dhowr daqiiqo wadnay ee 3 boqol dhowdahay Allah ya Allahumma sallim sallim ilaahay oo badbaadi ayaa salaadii cisha la qiimay taadna waxa ku ri wuxuu ri cisha markaynu tukano
alfiyadu saacad bay qaadataa buu ina maaliku saacad buu qaataa saacad baynu ku dhammaynaynaa xoogaa baa inoo dhiman 700 waxa weeye 45 daqiiqo meelahaasaynu ku dhammaynaynaa markaynu cishaa tukanno aynu soo noqonno waxaan ku wada xaafaddu aad bay u fogtay ilaahay markii way fogay laakiin waxa inoo tahay barita subax bay inoo tahay waliba 10 subaxnimo dib malabu 700 habeenkii baan ku saameeyay salaadii subaxna waan ku celiyay 10kii waxaan u iimaano 700 haye halkii baanu ku dhamaynay muddo dhowr bilooda baanu maalin walba intaanu isu nimaadna muddo saacada annagoo aan kitaab sidan ayaanu qaala muhammadun intaanu ka bilowno ayaanu beedka ugu dambeeya waxa weeye ku gaarsiinay dhowr bilood maalin walba dabadna waa tagay jaamacadii baan tagay waxaan taa u tusaalaynayaa si aanan markhaatiga u fogay isxaaq ibn rahuya abi isxaaq ashirazi ya wixii la mid markii aan jaamacadda tagay sanadkii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad meel ina maalig lagu hadal hayo iyo wax sheegaya ma maqal waayo kulliyadii ugu fogay kuliyatul xadiis baan galay xaga xadiiskan u bayd kulliyadii luqadda carabiga iyo naxwaha lagu hayo ma tagin meel naxwa lagu hayana inta maan tagin markii sanadkii saddexaad uu dhamaanayay baa la soo iclaamiyay ina maaliga ninka xifdisan yahay yimaad tartan baa la qabanay tartankii baa la isugu yimi fayl baa loo galay waxaan dhexda u galay 3 nin oo Mauritaniyiin oo shanaaqida ah nimanka xifdiga lagu xanto baan dhexda u galay mid baa galay su'aalo la weydiinayay xifdiga ku saabsan alfiyada intuu ku jiray baa shawlabada iga dambeeyaan ninkaas isku qolayay shanaaqidadana dawaa maqashan xifdiga lagu yaqaana walaw sidii hore aan ahayn laakiin caadi u leeyihiin wax xifdiyaan dadka waa kaga horeeyay waxay ugu yiraahdeen xagaad ka soo jeeda waxaan ku uri Soomaali baan shawaya sahlo waxay yiraahdeen war Soomaaliga kulli wax badan islaama hayee waxay yiraahdeen ninkan galay waa nin shanqiidi oo nin halisa bay yiraahdeen hadii aad ku xigtana sidii soo kala lagu moodaya su'aalahana waa lagu adkaynaya marka adiguna iska xajinmaysid mar hadaad Soomaali tahay ee annaga naga dambe labaan nahay ka saddexaad noqon xaga dambe naga soo waxaan ku xiisad baan leeyahay nasiibkaygan qaaday jaamacadii baa lagu mashquulsanaa waan u galay su'aalihii baa aniga la weydiiyay markii natiijadii soo baxday aniga iyo nin Hindiya soo baxday saddexdoodii baa hawaday ka baxay waa la waayay nimankii anaga xifdi badan xaga dambe mar waxaana xaqiiqo ahay oo ilaahay igu og yahay 3 sano xitaa kitaab maan haysan ina maalig kitaab maan haysan iska dhaaf inaan muraajaceeyo intaan meel fadhiistayna iskama dhageysan inaan xifdisanahay iyo inaan ilaaway midnaba ogeyn ismana weydiin markaan halka galayna 99 baan qaatay ninkii labaad baan noqday ninkii horena 100% buu qaatay laba nin baa loo baahnaa walaalayaal waxaan maanta jeclaystay qiso Allah subhanahu wa ta'ala nabigiisa uga warbixiyay oo ka dhacday ummadihii tagay qisadaasina ay nabiga ka sugantay calayhi salaatu wassalaam waxa soo warinaya ama ay ku sugantahay labada kitaab ee ugu sixada badan ugu sugnaanshaha badan xadiiska nabiga calayhi salaatu wassalaam Bukhari iyo Muslim walibana waxay ku soo wariyeen sanadada lagu tilmaamay inay ugu saxiixsan yihiin الصحيفة الصادقة نبي عليه الصلاة والسلام markuu qisooyinka inoo sheegay ama Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa qisooyin inoo sheegayo ujeedooyin baa laga leeyahay ujeedooyinka waxa kamid ah lagu cibro qaato ujeedooyinka waxa kamid ah xaalkaaga iyo xaalka qisada ku sugan inaad dhinac dhigto hadii wax wanaagsan la sheegayana inaad naftaada eegto intaad u jirto oo aad ku dayato hadii qiso aan wanaagsaneyn laga warbixinayana in laga digtoonaado oo waciidka iyo goodiga ku yimi aanu kugu imanaad ka digtoonaato wuxuu nabigu calayhi salaatu wassalaam inooga qisooday
nin dhul iska lahaa dhulkii uu lahaa buu iib u dhigay dabeedna nin baa yidhi waa kaa iibsanaya qiimihii baa lagu heshiiyey dhulkii baa la kala iibsaday kii dhulka iibsaday baa doonay inuu ka shaqeeyo saaskii iyo godadkii buu bilaabay inuu waxa weeye gudagalo markuu godadkii bilaabay ayaa wuxuu u tagay jalxad weyn oo dahab ka buuxo giraamyadii hadda $60 ay marayaan baa layidhi jalxad dahab ka buuxana waad qiyaasaysaa intay noqonayso welibana xilliya hore ninkii jalxaddii intuu soo qaaday dhulka iibsaday ayaa wuxuu ula yimi ninkii uu ka iibsaday ee dhulka iska lahaa ayuu ula yimi wuxuu hi anigu dhul baan kaa iibsaday dahabna ma iibsan dahabkaadaa iskale ee iga qaado ka kalena wuxuu ugu jawaabay anigu dhulka iyo wixii ku guda jiraba waa kaa iibiyey dhulka iyo waxa ku guda sugan labadaba waa kaa iibiyey labadiinna waxay ku murmeen dahabka adaa leh anigu malihi ka kalena wuxuu hi maya adaa leh anigu dahabkaa malihi waa kiilooyo dahaba nin waliba qiil buu haystaa kii dhulka lahaa xataa haddaanu dahabkaaba ogayn haddii dahabka loo keeno la yidhaahda dhulkii aad naga iibisay baanu ka helnay dhul baanu iibsanay dahab maanaan iibsan wuxuu heli lahaa inuu iska qaato u yidhaahdo waaya aad baad u mahadsantihi ma yeedhin kii dhulka iibsaday wuxuu heli lahaa inuu yidhaahdo dhulkaiyo waxa ku guda jiraba waan iibsaday waxa ka soo baxayna waa nasiibkayga anigaa iska leh oo uu sidaa ku aamuso labadaa nin waxay ku murmayaan xoolahan malihiya adaa leh ninbay isula tageen culimmada qaar waxay tilmaameen ninkaa la isula tegay inuu ahaa daawuud calayhi salaam nabiyullaahi daawuud inay isula tageen labada nin waliba gartii kii kale uu sheegan lahaa hadduu xoolaha sheeganayo ayuu mid waliba ka kale u sheegaya mid waliba ka kale ayuu u yahay looyar ama uu u hadlaya u doodaya oo gartiisii uu sheegaya si xoolaha loo siiyo ninkii ay isula tageen hadduu ahaa nabiyullaahi daawuud calayhi salaam iyo hadduu nin kaleba ahaa nabigu ma caddayn calayhi salaatu wasalaam xadiidkan laguma caddayn ninkii ay isula xukum tageen wuxuu doonay hawsha inuu dhexdhexaadiyo gar cadaawa uma qaadin go-aan iyo xukumna ma kala siin ee sulux iyo heshiisiin iyo dhexdhexaadin buu ka galay waana ta ugu fiican hawl haddii la galayo marka hore in lagu dayo dhexdhexaadin iyo isfahan iyo isafgarad in lagu dhammeeyo labadii nin waxa uu wax u wada maleedihi midi waxa uu wiil baan leeyahay ka kalena waxa uu inan baan dhalay wuxuu wiilka iyo gabadha ha la isu gooriyo koob xoolahana ha la isugu dhisa laba inta soo hadhayna ha lagu sadaqadaysto oo ha lagu biiliyo inta noloshooda ka hadhay hawshiina sidii bay ku soo dhammaatay nin walibana dareenkii uu lahaa xoolaha malihidaha qaadan waa loo horgeliyey xoolihii meel dheerna kama tegina ubadkoodii ayaa lagu dhaqay oo lagu koriyey walaalayaal raggaa xaalkooda ee ku sifoobay qanaaco dad ilaahay xoolo siiyey oo iska ladan oo noloshooda haysta baa waxay ku maman yihiin waxaanay lahayn ayay ku maman yihiin ganacsi buu leeyahay mushaahar fiican buu qaataa xilal buu haystaa siyaabo badan bay wax u soo galayaan haddana wuxuu ku foogan yahay xalaal iyo xaaraanba siduu wax ku heli lahaa buu ku maqan yahay
nimankana waxay ku qanceen wixii alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo umay hanqal taagin waxyaabo kale qanaaca waa ku sifoobeen waxay kale ku sifoobeen ammaano oo mid waliba ma doonayo inuu wax khiyaamo ammaanana waa ku sifoobeen waxay ku sifoobeen waracnimo xalaal miiradnimo inay xalaal miirtaan inay aakhiradooda ilaashadaan in wixii madmadow soo galaya iska ilaaliyaan tan noocaasna waa ku sifoobeen sifaadka kala duwan markay ku sifoobeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam warkooda mahay waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hortii boqolaal sanay qisadani dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u soo wariyey oo uga qisooday oo faray inuu innagana ina soo gaadhsiiye nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa qiyaamahana ummadda nebi maxamed intay jirto labadaa nin warkooda waa laga sheekaynaya qisadooda cajabta badan xalaal miradka intaa leeg sameeyey maanta nimankaasi siday u fakarayeen alla ka cabsiga ay ku sifoobeen aakhiradooda ay ilaashanayeen hantida ummadda ay iska ilaalinayeen iyo maanta xaalkeennu halka uu marayo cid waliba waa dareemaysa rag walaala ah oo aabba wada dhalay baa kow iskaga siiyey adduunyo iyo dhul kow iskaga siiyey oo waxa weeye isu dilay dad qaraabaha baa ku dagaalamay dad xigaala baa ku colloobay fitnooyinka ugu badan ee ummadda lagu fitneeya waa xoolaha innagana si gaara xoolihii waa noocyo badan fitnada dhulku waa tan laynagu sii fitneeyey wey hadday dee xaaladdu dahab gaadhana ka sii daran walaalayaal adduunyada waa laga tegaya qisadan khulaasada ama nuxurka aynu ka qaadanayno ee warkeedu uu ku kooban yahay maanta aad bay u adag tahay xoolo aad qiil ku leedahay inaad iskaga tagto hor ilaahay aad uga tagto adoo qiil u heli lahaa oo maxkamadba aadan gaadhsiin iska daa laaluush inaad ku bixiso iska daa hagardaamo inaad samayso iska daa inaad ku dagaalantay iyo wixii la mida qofku qiil hadduu leeyahay noocay u tahayba inuu kaba tanaasulo oo qofka kale aragtidiisana uu tixgeliyo waxa weeye aad bay inoogu yartay waxaa mar dhexdaas igala soo hadlay jarmal waa tan dee dadkan yurub jooga hadda guryaha dhisanaya waxa weeye ribadii caddayd baa laga yaabaa qofka in loo fududeeyo marka nin baa ila soo hadlayaan garanayo waxa igu yidhi waxaan doonayaa jaanis baan helay inaan waxa weeye guri iibsado qiimo jaban baan ku helay bangiga ii iibinayaa wuxuu isaarayaa dulsaar waxaan ku yidhi waxaasi ma baa ka fogow cawad khayr qabana ilaahay waa ku siinayaa waman taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayran min wuxuu yidhi waxaan la hadlay ninkii hebel waa nin kaleo isna aan cilmi ku dhaamin laakiin xagga danta ka hadlaya wuxuu igu yidhi waxaan ku yidhi guri baan iibsanayaa wadaadkii sheekh xasan baan bal la tashanayaan weydiinaya wuxuu igu yidhi hebel waa nin kaleoo saddexaad oo aan garanayo waar maxaad ka weydiinaysaa ma yurub buu kula jooga duruuftayna haysata iyo ciyaalka inaga dayacan iyo kirada laynaga qaadayo iyo waayahaynu ku noole waxba kama oga cilmi ma lihi laakiin anaa kuu fatwooda wadaadkaas waxa ma oge iibso soomaaliyana ha la hadlin buu ku yidhi waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم